daawadayaal ku soo dhawaada idaacadda codka Soomaaliyeed waa warkii shiilaa ee aan shaandhaysnayn ee aan nooga barateen barnaamijkani wuxuu daba jebinayaa shirkii Jabuuti ee Jalabuteyska ahaa ee beenta loogu sheegay ummadda reer waqooyiga gebagabadii shirka ayaan idin kor carari doonaa iyo arrimaha rasmiga ah ee ka dambeeya wuxuu yahay soddonkii sannadood maaweeladii beenta ahayd ee dadka reer waqooyiga lagu hayay ee laga qarinaya xaqaa'iqu waxaa soo dhameeyay madaxweyne Siilayo kana uu amxay maanta communique-ga ama warka ka soo baxay meesha waxaa misleading report waxa weeyaan war minja habaabisa oo waxa ku qoran waa wixii uu Siilayo hore ugu leeshiyay labadii madaxweyne ee hore ee maamul goboleedka lagu qaatay baa leenugu soo celiyay dowlad goboleed cusub oo Muuse Biixi uu leeyahay iyo reerkiisu Heegalanku ayaa la soo saxeexday oo shaarkii hore ee jeegaantu lahayd baa la iska bixiyay kaasa la inoo soo xidhay dhaqaale ayaa laga raadinayaa ciidankii isku reerka ahaa ee taanahagayay lagu sii haysto cashuurna ay kaaga qaadaan 8 wasiir ee isku reerka ahana ay kugu sii joogaan ay kugu maamul goboleedaan iyagoo ah federaal masiirka Heegaland ee maamul goboleedka ah ayaa dadka halka la geeyay ee muxallalka isugu jira iyo ragga ah ee wuxuu wada dhacsanayaana ay meesha u wada joogaan xisbiga wadani ayaa marxaatiga u furay oo la shaqeynayay waxa la yiri meed maxaa u dambeeyay kaale siisido ninkii ina bixi ee la shaqeynayay xisbigan arrimaha dibadda u joogay waa maqlayseen inuu lahaa anaga ayaa ka qayb ahayn in maamul goboleedka la aqoonsado oo laga shaqeeyo madaxweynaha Jabuuti waxa la ugu warwareejiyaa ma nin dhexdhexaad ah madaxweynaha Jabuuti waa nin danaysanaya oo u danaysanaya xaaladaha uu ku jiro ee team oo yalka ah ee meesha ka taagan arrinta kale aan doonayo inaan indhihiina ku soo jeediyo waxa weeye waxa la igu soo celceliyay madal caalami ah ayaan ku garnaqsanay madal caalamiya meeshu maaha waa Djibouti waa wadanka ugu fiqirsan Afrika waa wadanka ugu badan marka United Nations liiskiisa eegto fakhriga waa wadanka ugu badan ee adduunyada musuqmaasuq ku jiro waa wadanka ugu badan ee adduunyada ugu dambeeya ee la isku baadho waa wadanka ugu dambeeya xuquuqul insaanka waa wadanka uu dictatorship ka talinayay muddada ka badan 20 sannadood madasha caalamiga ee horta leedii sheegaya waa taa madal caalamiya maaha ee guri madow ayaa taariikhdii ummadda reer waqooyiga lala galay madal caalamiya waxa la yiraahdaa dawladaha super power-ka ah ama regional power-ka ah marka lagu qabto xaqaa'iqdu marka runta laga sheego ninka madasha ka hadlay caalamiga ah waa ninka la yiraahdo Siilayo wuxuu ka hadlay wadanka labaad ee ugu xoog weyn leh xulafada NATO Ingiriiska UK oo uu fadhiyay ra'iisul wasaarihii Cameroon ee wadanka caalamiga ah ee nuclear power-ka ah u talinayay wasiirka khaarijiga ee Mareykanka ayaa fadhiyay wasiirka arrimaha dibadda ee European Union-ka ayaa fadhiyay xoghaynihii caalamka oo dhan ee United Nations-ka ayaa fadhiyay kaasa la yiraahdaa madal caalamiya inta uu animation ka akhriyay buna ka akhriyay wixii lagu soo qaatayna maamul goboleed sheeganaysan ayuu ahaa dawladdan cusub ee meesha timi ee farmaajo hogaaminayo ayay ka shaqeyn weyday wixii intii umba mar labaad loo fuulay faraska in lagu soo kor saxeexdo oo adiga lagu maamulo ummadda la moodaya dadku inay indhala yihiin waxa la inoo hadlayaa sida caruurta ama dad jaanjaaman oo aan wax kala garanaynin waxaan soo xusuustay musalsalkii carbeed ee la oran jiray madrasatul majaaniin iskuulkii dhibirka ayaynu maanta ku jirnaa oo aynu dhiganaynaa Saleebangaal ninka la yiraahdaa waxa uu uga booday arrinta waayo kaba uu warhaynin waxa meesha lagaga wada hadlayay wadruwa uu kodkiciyay wuuna arkay inaan waxba isaga reerkiisii uga dhalin ay tahay reer heegaysan maamul goboleed loo soo samaysanayo hore ayuu Saleebangaal ummadda ugu sheegay maalintii uu Addis Ababa ka soo noqday ninka Muuse Biixi la yiraahdaa inuu ku war maxaad waxaan u soo qaadatay ee uu yiri waan ka baqay ninka Abi la yiraahdo marxatigiisa qofkii doonayo waad ila soo xiriiri kartaa khasab ayaa lagu keenay dana isku xiran original ah ayaa loo soo kaxeeyay waxa madal caalamiga iyana ahayd madashii Turkiga ee uu Erdogan madaxweynaha saddexaad ee ugu xoog ciidanka ugu xoog weyn Netanyahu uu fadhiyay ayaa madal caalamiga la yiraahdaa guri madow ayaa la isla galay saddex nin oo nimbadan wato kana uu lacag doonayo iyo sidii adiga lagu sii haysan lahaa cashuurna lagaaga soo guran lahaa nidaam dawli ah oo caalamka ka shaqeyna lagu sheegi lahaa dawladda Djibouti waxay aaminsan tahay mar walba wan Somali policy ilaa shirkii carta dib u eega imika communique-ga ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ee hoos yimaado maamul goboleedkan aynu ku noolahay ee Heegalanku ee imika la ansixiyay waxaan ku bogaadinaynaa madaxweynaha Djibouti inuu mar labaad Soomaali isu keenay arabtu waxay ku mahmaahdaa magaari ximaarka ayaa buudiga jiida mise buudiga ayuu dameer ku jiida Yamamoto Abe iyo ninka la yiraahdo Geelle saddexduba way u sii sheegeen Muuse inay tahay dani waa seeto
marka halkaa wuxuu ku yimi cunaqabad laakiin mar walba waa nin u taagan danta reerkiisa waxuuna hogaaminayaa reer minority ama dad tiro yar oo heega ah ayuu ku hogaaminayaa inuu ku qaato dhammaan sida imikaba u qaateen meesha Somaliland ay ku sheegaan iyagu wixii manfac iyo maal iyo sumcad ay lahayd ayuu imikana doonayaa mar labaad inuu reerkiisa heego u soo qaado arrintaa waxaan ku leenahay isaga mabruuk muuse inaan dadnimo iyo dood iyo damiir midna lahayn waa ogtiin laakiin wuxuu leeyahay hal adayg qabyaalad ah oo reerkooda ah isagoon soo dagaalamin oo aan waxba qabanin oo aan meel la soo marin wakaa kursigii intuu ka jiitay kii kale rasaastana la dhacay imikana kusoo dhamaysanaya maamul goboleed reerkoodu leeyay maadaama ay ku filaan weyday ay ku soo xidhantay caalamkii oo dhami waa tan imika loo soo furay lacagtii maadaama iyo dhulkii labadiiba siduu u qaadan lahaa maamul qarsoon oo labaad ayaana la doonayaa mar labaad in laynoo muxallalo oo laynaga mushahaar qaato oo aynu ku cashuur bixino maamul goboleed baana halkaa ka hirgalay ninka la yidhaahdo apey maxaa isaga uga daray ra-iisul wasaaraha Ethiopia waa ogtiin TPLF oo ah ururka ugu xoogga weyn siyaasiyan iyo ciidanba ee Tigrayga amxaaraduna daba fadhido ayay isku hayaan doorashadii isaga loo kordhiyay maamul goboleedkaana doorasho ayaa laga qabanayaa isaga ayaa u baahnaa oo ka cararayay dagaal gacan ah iyo mid siyaasadeed inuu nimankaa dhex maro inuu yimaado international arena meel ay ku garnaqsanayaan guri madow oo caalam ku garnaqsanayaan saddex safiir ama laba safiir ayaa meesha joogay safiirku waxa weeye waa rasuul war uun buu qaadaa oo boolisiga waddankiisa ayuu ka turjubaa ee go'aan waddan uma gaadho Djibouti oo iyaduna taa ah aragtaan ee intaas blacklist-ka caalamka kaga jirta United Nations kuna imika iyo European Union ay baadhista ku hayaan arrimahan xuquuqul insaanka ah ay rabtay meel ay iskaga maxallisho iyo Kenya ay isku haystaan kursiga Kenya iyo siyaasadda arrimaha gudaha ee qasan ee halka ka taagan iyo baayac mushtarkii uu hore ugu bartay ninka la yiraahdo geelle inuu ka baayac mushtaro ummadda Soomaaliyeed siyaasadeeda dhexdhexaadna kama aha laakiin isaga TC uu marsaday laakiin caalamku waxay ka dhageysanayaan maaha ninka kaliya ee meesha ka qaatay goolka ka dhaliyay waa Farmaajo waayo Farmaajo wuxuu ku dhaafayaa dantiisa shakhsiga ah ayaa meesha ugu jirta ummadda Soomaaliyeed iyo meel kale ugu dareeraya toona ma jirto sidoo doorashada ugu soo noqon lahaa ayuu doonayaa hadalka Muuse Bixi oo dhami wuxuu ku soo koomayaa beeso lacagay ragga kala labeeyay iyo nin reerkiisa difaacanaya heegalanka intan oo jaran ee iskor fadhida iyo 8 wasiir taas oo lagu sii dawladeynayo maamul goboleed dawladeed lagu sameeynayo oo lagu sii kor haynayo uba meesha ka soo baxday aqoon darro weeye ragna u maqan ayaanu arinta leenahay dadka meesha lagaga yimi u fiirsada ee sii dejinaya maamul goboleedka lacagta uma raba in la dedejiyo inta kale hore u sii dhameeyo waa la dhameeyay waa adna waa sulub waa saajin waa saacad waa ka ambassadorka lagu sheegayo waa ina taani saddexdan kale waa islaantuna waa iska qofka marwada ah oo iska qof caadif iyo laab la kaca labadan kalena waa muxallal saddexdan nin ee meesha lagaga yimi lacagta oo ilaalinayana waa saddexdii nin ee meeshan taladeeda lahaa lacagta unba la doonaya kuwa kale afka xirintiin weeye afku ay dhixnaado yaanu coronavirus idugu dhicina ra-iisul wasaare Yamamoto waa ogtihiin isagoo mar walba interestka America ayuu meesha ka eegaya haddaan ummadani aanay iska dhicinna isagoo wax macna oo badan oo ugu jira ma jiro hal Soomaaliyeed oo federaal ah ayaa meesha laga eegaya one Somali policy shirkii carta ayaa dib u soo noqday arinta dadku hadda dhansadaan waxa macnihiisu yahay shirka carta dawladda Soomaaliyeed ee u horeysay ee caga lagu taago ayaa lagu taagay taa macnaheedu waxa weeye mar labaad maamul goboleedkii halka joogay ayaa la hoos geynayaa 4 ama 5 maamul goboleed ee kale ee meesha ka dhisna waana la isku raacay Farmaajona interestka USA-ga uu buu isaga laftiisu fulinaya isagoo soo dhex raacaya in meesha loogu soo celiyo wali waxaanu ku dhex jirnaa madrasatil majaaniin waxaad moodaa sidii dad waalan in la iroola hadlayo hore Soomaalidu u tiri saan sakaaro iga dur mooyaane iga ka male nimanka la yiraahdo mucaaridka khaasatan ninka la yiraahdo inay ro oo awgeydeen wixii uu ku lahaa markii doorashadu soconaysay iyo markii ka dambeysay iyo markii ka horeysayba wadanka lagu ma aamini karo ninkii lahaa waa Muuse Bixi xiniyaha lahaa ku lahaa isaga xamar buu nagu wadaa ra'iisul wasaarihii Soomaaliya in Cabdirashiid buu isku soo sawiray $150,000 ku bixiyay isagoo ku riixaya reerkan oo dhan garxajiskana lagu sheegayo inay Soomaali weyn yihiin ninka Soomaaliland khiyaameeya waxa hadalka waxa la Muuse Bixi Ilaahay ayaa ka shifaa isagoo sheegaya ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan koonfur buu nagu wadaa haday maqli lahaayeen mujaahidiintii maanta ninkaas meesha qabanaya luxudkay ka soo kici lahaayeen intaas oo nabar oo siyaasi oo qabyaalad oo colaada ayuu ku dhuftay
isaguna wuxuu ugu abaalguday inuu markii horena u tanaasulo markii labaadna uu u saxeexo in maamul goboleed heega ah lagu soo kor qaato ummadan reer waqooyiga. arrintaasi waa nasiib darro. markhaatiisha ayaaba loo noqday ninkii xisbiga aynu u dirsanay aanu war dadka shucuurtiisa ka jawaab. yamantu waxay ku mahmaadaa ninka gudcurka ku indha jabinayo cidina kuma aragto waxse ummadi ay yeelayso oo isaga iyo kan meesha tegay ee soo qaatay familigan enterprise-ka ah yeelaya midina ma ay jirto. gabagabo iyo gunaanad anigoo kala qaadi doona ummadda reer waqooyiga oo qolo walba canaantay leedahay gaar u siin doona. islaamu waxay ku mahmaahaan naago nin qaawiyey kama samraan, ragguna waxay ku mahmaahaan adhi qulux kama yalbaxo. qabaa'ilka ummadda reer waqooyiga dhammaan iyaga waxa u soo habeen madow ayaa u soo dumay wareerkii meesha jananada iyo ciidanka iyo lacagta isku haystay iyo maxkamadaha iyo dekedaha ayaa mar labaad maamul goboleed ku soo kor qaatay iyagana u matelaya wax la yiraahdo Hegaland ama Somaliland oo lagaga cashuur qaadanayo shidaalkeeda iyo dhaqaalaheeda iyo dheefteedana ku kor cunaya iyaga. taas waa koow. talabaysa waa inay dhammaan isu yimaadaan oo shirbeeleed degdeg ah ay ummadda reer waqooyigu isugu yimaadaan oo lagu dhawaaqayo in ummad waliba deegaankeeda iyo dadkeeda ay ku shaqo tagayso ay maamul goboleedka communique-yana ka soo saarto shir caalami ah. waa shir caalami ah wuxuu isu bedelan baanbaane ood weyne shir lagu qabsado, buuqooda shir lagu qabsado, berbere shir lagu qabsado, leeyahay waa shir caalami ah oo caalamku uu ka soo qayb galay. way markaa go'aan lagaga gaaraa in la sii biilayo iyo in kale Hegalandkan maamul goboleedka u xubsiibatay. dhammaan la xisaabtamo tujaarta maxallalka ah ee nimankan la shaqaysta ee cashuurta ummadda siiya marka ay isqabtaana qabaa'ilka dib ugu soo cararaya. waa in cashuur joojin la sameeyaa. dadka dhallinyaradina waa inay soo baxaan oo ay soo qaataan calankii Soomaaliya maadaama la isku daray sidoo nin waliba dhankiisa uu uga dhaansado ceelka. imika waa ogtihiin oo waxa la diyaarinayaa abnawaas beenlow falalow ayaa la diyaarinayaa in laynagu soo celiyo oo la yiraahdo khudbad garnaqsiya buu halkaa ka akhriyay oo caalami meel caalami ah guriga madow aan idin soo sharaxay. wax laga akhriyayna ma jirto. khudbadii waa akhriyay rasmiga ahayd ee af Soomaaliga maalinta ku hadlayay. waxa laale iyo wixii naga duwan waan dhageysanaynaa, waana idin wacyi gelinaya. waxii aan idigu ballanayna yeela waa maamul goboleedkii saxeexa ha noo qarsoonaado, lacagtana aan soo qaato, dadka meesha joogana aan duleeyo. olala imika laga wada gobol walba oo Hegalandka ka mid ah dadka la gelinayo misinformation-kaas ama warka mijahabaabiska ee beenta ah oo la doonayo in mar labaad sidii dad waalan la idiga iibiyo wax aan jirin. la yiraahdana ha loo soo banaan baxo hero ba soo degay. hero-gu markii rag isdilayeen soo kay cararay ee jigjiga ku dhuumanayay mahalku hero-gu uu ku soo baxay. mijahabaabinta inuu ugu socotaa idinkaba way idin muuqataa. soo dhaweynta loo diyaarinayo ee lacagta lagu bixinayo waxa la doonayaa in la idigu dambabiso oo la idin la dhaqmo sidii dadka xoolaha oo kale xerada marna oo afka laga saaro marna laga qaado. su'aasha taala ee ummadda reer waqooyigu isweydiinaysa waxa weeye wuxuu ku garnaqsanayay Muuse Biixi 50,000 oo qof ayaa la iga dilay. war lagama dilay dadka meesha ku dagaalamay ee istilay anaga ahaayeen 27 bisha weydikii dhuuntay ee eegayay waxa nagu dhacay sida ay noqoto ee meesha fadhiya jigjiga jeelasha ku xidhnaa dadka dhintay ee la laayay waa anaga rag baan isdilay. taana cid ka cabanaysa ma jirto. ee ta ku taala ee aanu maanta ku weydiinayna waxa ay tahay dadkii kalshaale lagu laayay ee shacabka ahaa yaa bixinaya magtooda. dadkii dilaa ku xasuuqdeen yaa magtooda bixinaya. dadkii absame ee qaxootiga ahaa aanu idiga haynay limaydan dagaalamayna magtooda yaa bixinaya. dagaalkii Maryaaloolka aad soo abaabushay calanka maanta aad soo qaadatay ee Soomaaliyeed aad sulaysay xaafadaha ee madaafiicda ku soo garaaciseen maatadii ku dhibatay anagu rag cid ma weydiinay yaa loo raacayaa bixinaya. ma ninkan ku muxalalay ee mucaaradka aad ku sheeganayso iyo jinka dagaagay ee garxajis ayaad moodaysaa iyo kuwa siyaasiyiinta ku sheegaysa ama warar cadde ama tabacadayaasha ayaad moodaysaa inay waxan xalali karayaan. intaas oo su'aaloodba adaa lagaaga fadhiyaa. su-aasha taa daba taala ee daba taala waxay tahay yaad ku matashaa maamul goboleedkan aad soo qaadatay ee raggana ay mushaariga kugula qaadanayaan ay mucaaradka ay anaga jalaabutayska noo ciyaaraya. sida caruurta loo wada hadli maayo waxa loo wada hadlayaa sida ragga. intaas waa intii ummadda reer waqooyiga aan kula hadlayay. nimanka garxajiska la yiraahdo acyaantooda waxaan ku leeyahay inta nabar ee meesha idiga soo gaadhay waa ogtiin. qabiil qud iyo nafba iyo xoolaba reerkii halkan ay kaga baxday waa idinka. sida maanta aad tihiina waa is aragtaan maqaamka la idin gaarsiiyay. horaa loo yiri geel duq baa loo tumaa ummadda reer waqooyigu idinka ayay idin soo eegaysaa. dagaalka marka la gelayo bahasha dabaabada la yiraahdo ama taangiga ee Fantarugo waxay ugu daba dhuntaan inay ciidanku meel ay maraan ay wada helaan.
idinka ayaa mar labaad garbaduub idinka oo u xidhan la doonayaa maamul goboleed heega leedahay reer leeyahay in la idigeeyo oo la idigu maamulo horey Soomaalidu tiri ninka waxa aan joogin aan garani waxa soo socdana ma garto garxajis waa ogeydeen oo lagu laayay 1994 lagu la dagaalamay Maryaalool oo dhan iyo Oromo iyo wixii ciidankii siyaad barre ka haray soo ka haystay caalan Soomaaliyeed maanta in caalan Soomaaliyeed lagu soo kor qaato oo waliba iyaga loogu hanjabo oo hub iyo ciidan loogu kor samaysto iyo maaliyad iyo wasiiro taas waxaan leeyahay ciyaantahay inama qabato ina buur fuushaan oo wadankii xooga ku lahaydeen qabsatay ka kor calaashaan inama qabato ina 8 qodob ka soo saartaan oo dasbiinka ama lagu tuuro meelaha ku daafada ama khashinka inama qabato go'aan inaynu ka qaadano waayo ceelayno ma qodna cidna inoo maqnaa waa aragtaan waxa jin dagaagay ee kala nooca ee xisbi leh ee siyaasi leh ee madax dhaqameed leh ee leeno sameeyay 1991 wadanka waxa gacanta ku qabtay xoogiisa 78 ciidankii garxajiska nin baa hogayay waa idinku ogaayo burca la inuu afduubay waxaan wax inuu cusub maaha waa wax la ila bartay waxa weeye meeshii xumayd ee waxa baratay dagaal baa la inuu la galay oo kursiga leenagaga la wareegay waayo waxa la diidanaa koonfur ma ahayn ninka la diidan yahay waa adiga waa taa maanta ba koonfur la aaday 8 sida jiirka dawada lagu daweeyo ayaa lagu eegay dagaalkii burca ka dhacay bal waxa kugu dhacaa sida ay noqoto 1994 ummad oo dhan inta lagu soo urursaday Maryaalool iyo wixii agaha ay ku qaadanayeen ba ayaa lagu la dagaalamay markaas inta aad adkaatay aad siyaasiyan dana khaldantay aad ninka aad ka adkaatay aad kula heshiisay waxaan jirin isku soo wada ururi maanta idinka ayaa ummadaydu soo eegaysaa reer waqooyi wada reer ka tihiin waayo waxa la yiri hore loo yiri geel duq ayaa loo tubaa waxaana ka tashataan sidii arintan ka yeel lahaydeen dagaal baa la idugula jiraa siyaasiya dagaal dhaqaale la idugu jiraa mid taariikheed baa la idugula jiraa mid ummadeed baa la idugula jiraa mar labaad ayaa go'aan lagu soo gaaray idinkoo aamusan gashaantida aamuska lagu mehereeyaba la yiri in halka la idin la kaco shirka jira xaqaaqiisuna waa ka communique ka soo baxayna waa ka dila ragii ay ku laayeen ee adiga xitaa magacaaga lagu soo dirsaday aad shaqada ku lahayn qoxoontiyadii la xasuuqay kal shaalaha nimanka dhulbaantay ee lagu laayay waxaas oo dhan adiga ayaa lagu soo gabanaya wax alaale iyo wixii godob la soo qaatay wixii nacfi ana 8 nin oo isku reera oo 10 muxallala leedahay ka haystay ayaa ku shaqaysanaya waxaan leeyahay ciyaantahay arinta hal laga kaco magdhowga la isweydiinayo ee la weydiinayo dawladda Soomaaliyeed magdhowga isaga maxaa kaga dhinto laga dilay Muuse Biixi reerkiisa waa soo ku yaacay maaha ma beentii la qoranayay ee buugta lagu qortay ee booba ducaale iyo cali guriyo isaga iyo ragii la noocaha ay isla samaysteen ayaa la tagay madashin Djibouti ee Djibouti waxa ninkii doorashada u boobay ee ninkan meesha imika u marxaati furaya uga boobay ee shacabkii suuqa lagu laayay ee xabada lagala daalay ee kuwii arabe maalintii hore la socday ee Maryaalool ka lahaa suuqa xabada lagala daalay xisbigoodan la qubay ee uma qalantaan war meesha ay nagu sharciyeynaysan miyana meesha ahayn umadu waxa ka soo kacdo hana la iska celiyo beentana yaa la dhageysanin hadii la soo mudaharaadayna caalamka Soomaaliyeed hal la soo qaato nin waliba wixii ay u goyso gobolkiisa iyo xuduudiisu ayuu goosanaya maamul goboleed bay noqotay nin walba waa inuu ku dhawaaqdaa maamul goboleed uu isagu leeyahay oo ay ku matalayaan dad xalaala hore loo yiri muuminka laba jeer god lagama wada qaniino 9 jeer baa la naga qeynay waayo munaafiq baa hor socda munaafiqiinta hor socota ee tujaar leh ee madax xisbiyeeda leh ee madax ku sheeg kale leh oo siyaasiyiin ah oo hawlo kale qabta intaaba hadeynaan meel iska saarin hore u socon mayno waa gacantii madoobeyd ee Falastiin ay ku xorowday yadil aswad weeye gacanta u horeysa nimanka ay ku dhacayso ee ummadan duleeyay waa nimanka isaga maaha isagu reer buu soo qaatay wax madal sharci oo la isugu yimina ma jirto ha laga soo diyaar garow maamul goboleed si reer waliba ay dhinacooda jilib ahaan ugu dhisan lahayn inta is ogoli maamul goboleed ee tirada leh haddii 6% ay maamul goboleed heshay waxa u diiday 94 kale maamul goboleed helaan sharci u diiday diin iyo dhaqan iyo xeer mid ka xidhaya toona ma jiro dhamaan ummadda reer waqooyiga waxaan ku leenahay waa mahadsantiin hana laga kaco